maamulka degmada Galdogob ayaa kulan qada sharaf ah waxa ay u sameeyeen xildhibaanada aqalka hoose ee dawladda federaalka musharaxiinta hadda raadinaya saraakiil ciidan iyo qurba joog qadada kadib kulan ka dhacay hoolka shirarka ee xarunta dawladda hoose ayaa ugu horeyntii waxa hadal ka jeediyay gudoomiyaha degmada Galdogob Xasan Faarax Maxamed Ayaxle wuxuuna sheegay in dhibaatada ugu baan ee degmada haysata ay ugu weyn tahay nadaafadda kulankan wuxuu ku saabsanaa maamulka degmada qada uu sameeyay musharaxiin ha noqoto ama isimada ama dadka wax garadka ay reer Galdogob waxaan leenahay soo dhawaada meeshan waa xaruntii maamulka degmada Galdogob waa xarumihii hadda intii labadan sano oo dambe la dhisay hay'adda dhay baan uga mahad celinaynaa dawladda Puntland ka sukow magaaladu sidaad u aragtaan hadda waa magaalada weyn wax badanna waa laga qabtay wax badanna way u baahan tahay waxyaalaha hadda annagu aan taargetka aan islahayn hadday hesho wax badan baa sii kabi lahaa ama saldhigoo kale oo dhismaha noqoto ama maxkamad ama xabsi waa waxyaalaha keliya oo hadda markaan isha ku hayno degmada Galdogob waxay sugaysaa waa dadkii naas ama horey wuxuu hayay ama hadda qaban doona deemin la sugayaa uu isgaranayaa waxa uu laga sugayo horumarka qof walba wuxuu ku kaban yahay dalkiisa wuxuu ku kabo ama gurigiisa ku kabo guryaha waaweyn baad ka dhiseen adagtiin jidad male waxyaalaha ugu culus oo hadda degmada haysta waxa ka mid ah nadaafadda wiiraan waxaa joogta 50 ama 60 iska rogo ciidanka fayda dawladda hoose male gaari walba qashin buu qaaday meesha hortiisa ku daadinaya oo arko isaga rogaya waxaan leeyahay marka sidaad uga qayb qaadan lahaydeen horumarka degmada ama wacyigelis ha noqoteen oo ciidan oo maqnaa runtii waxaan filayaa in badan oo dadka beerkiisa oo wax garanaysa meeshan joogta inaan idhaahno dadka nala wacyigeliya الله الله tabartiina iyo taladiina ku kaba degmada Suldaan Maxamed Jaamac Shire oo munaasabada ka hadlay ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay ilaalinta nadaafadda iyo bixinta canshuuraha Galdogob iyo deegaankeeda mas'uul baa nadaafadda ka saaran qofkii gacan uga geysanayay qofkii baabuur uga geysanayay qofkii lacag uga geysanayay mas'uul baa inoo ka saaran dhamaanteen waa in sidaa la soo jeediyay aynu wada istaagnaa maxaa lagu hormaraa canshuur baa lagu hormaraa inagu dekadna ma lihi sida la sheegay macnaha waxa weeye aeroboor ma lihin waxaan ku hormari karaa canshuurta waa in la bixiyaa dhanka kale dadkii ka soo qayb galay munaasabada ayaa amaan waxa ay u jeediyeen mudane Saadiq Warfaa oo muddadii koobnayd ee uu joogay degmada Galdogob ka qayb qaatay horumarinta degmada qashinku waa nahareer Saadiq Warfaa khayr Allah siiyo xildhibaanada ka qayb qaatay ku jiray walow ana xildhibaanada kale anagu aan la hadlinin asagu laakiin waa soo xilqaamay maal badan buu ku baxshay $2,000 buu noo keenay iska rogooyin badan iyo cagaf badan baa ka shaqeysay aad baan ugu hambalyeynaa waxaan leenahay waxaaga wax baraka Allah kaaga dhigo idinkana intaas oo kale idinka sugaynaa wax ka badan baa idinka sugaynaa oo xildhibaanada xilka raadinaya iyo kuwa inoo hayaba mas'uuliyad baa inaga saaran degmadeena iyo deegaankeena inaynu u wada istaagno oo ka dhidhino sidii khayr badan Allah siiyo maalkiisa iyo xoogiisa ba Allah u barakeeyo xildhibaan Saadiq Warfaa oo halka aanu kala shaqeynay muddo 3 bariya iska rogooyin noo kireeyay aad iyo aad uga qayb qaatay waxaan leenahay xildhibaan Saadiq lagu daydo waa aayatiin waa bariyo soo baxay waa cadceed soo baxday waa waxaan la qarin karin Maxamed Cumar Afduub raadiyaha iyo telefishinka caalamiga ah ee SBC degmada Galdogob